gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe iyo labadiisa ku xigeen ayaa maanta shir gudoomiye kala fadhiga koobaad ee kulankiisa gaarka ah ee golaha waxaana soo xaadiray 220 mudane ajandaha kulankan waxa uu ahaa ansixinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warqad ka soo baxday xafiiskiisa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka kaga codsaday inay codkooda kalsoonida siiyaan ra'iisul wasaaraha uu soo magacaabay waxaana golaha hortooda ka akhriyay xogayaha guud ee baarlamaanka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux dhanka kale ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo xildhibaanada soo hor istaagay ayaa ka codsaday inay codkooda kalsoonida siiyaan si uu u soo dhiso xukuumad tayo leh gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Madoobe ayaa xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka codkooda kalsoonida ah u weydiiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaana cod gacan taag ah ugu codeysay 220 xildhibaan ma jirin wax diiday ama wax ka aamusay wuxuuna gudoomiyaha ku dhawaaqay in si rasmi ah loo ansixiyay ra'iisul wasaaraha la soo magacaabay dalmar waa isbitaalka caafimaadka dadweynaha daaweyntooda aan ka daalin isbitaalka dalmar dad aqoonta daryeelka iyo danta hawsha yaqaan iyo doctorada ka shaqeeya dhaqaatiirta ma daahdo markasta waa ku diyaar cudurkii laga dayrsho degdeg bay u baxshaan isbitaalka dalmar indhihii daymadooda aragooda daciifo isbitaalka dalmar baa dawadooda iyo daryeelkooda yaqaan dalmar hospital waxa kugu diyaara dhakhtarka wadnaha dhakhtarka kaliyaha dhakhtarka caruurta dhakhtarka haweenka dhakhtarka indhaha dhakhtarka ilkaha iyo dhakhtarka qalliinka guud isbitaalka dalmar waxa ka howlgala dhaqaatiir ajaanabi iyo Soomaali ah isbitaal weeye dadweyne oo bukaan oo dhan daweeyo dadkuna ay bogaadsheen marna waa dugsi guudo duruus buu bixiyaayo daa'irtu wax baraay doonayo la xiriir dadweynuhu ha mogaanina isbitaalka dalmar dalmar